marka hore ilaahay maxad leh inay ku dhamaatay nabadgelyo doorashadaasi. marka labaadna waxaan ilaahay ka baryay inuu noqdo madaxweyne khayr qaba, ummadda ka shaqeeya wanaag iyo horumar ka shaqeeya ilaahay u baryayaa. Siciidna waanu anagu si shaksi ah ayaan saaxiib u nahay, dhowr jeer baanu kulanay. waa nin u qalma inuu maanta qabto hoggaanka Puntland oo maanta ku jira dhiidhib ku jira in dhiidhibka ka saara oo horumar iyo walaalnimo iyo barwaaqo u horseeda ilaahay ka barya waa inuu taa ku dhaqaami doono biidnillahi karim. guud ahaanna waxaanu aad iyo aad ugu hambalyeynayaa dadkii codka bixiyey. waxay taasi kutusisaa inay dad bislaadan yihiin oo aanay lacag iyo eegin qabiile eegaan dantooda, danta dalka iyo ummadda ayay ka saraysiiyeen danta khaaska ah. marka 66 qof ka footay waan hambalyeynayaa. waxay muujiyeen garaad wanaag bay muujiyeen, xilka kasnibay ay muujiyeen. waxaan jecelahay insha Allah tacaala inaynu wada shaqeyn wanaagsan yeelano. Soomaali ma baahna maanta dhibaato iyo burbur iyo dagaal. qofkii tuulo hagaajiyaa waxa Soomaalidu hagaajiyay oo nabad ka dhigay ina cameeyo Cabdiweli Gaas waxay khasaare u keeneen Soomaaliya oo dad badan bay iskaga dileen oo loo baahneen. marka waxaan jecelahay arrintaas ay si dhaqso ah inuu dhameyn doono insha Allah tacaala.